kii ugu weynaa ee abad dhulka ku noolaaday inta la og yahay. Noolahani waxa uu leeyahay tilmaamo iyo nolol khaas oo ama ka gelisa aadamaha. Xajmigiisuna waxa uu ka weyn yahay aadamaha maanta nool. Sidoo kale waa xayawaanka ugu dheer uguna miisaanka culus uguna qaylada dheer dunida. Dhererkiisu waxa uu dhan yahay 30 mitir. Waxa uu dherer leeyahay ilaa 3 bas iskuul oo la istaba dhigay. Sidoo kale waxa uu xajmi ahaan leeyahay ilaa 24 maroodi. Xajmigiisa ayaa gaadha 200,000 kilogram. Wuxuu cunaa maalintii cunto dhan 4 tan. Waxaana uu cunaa noole aad u yaryar oo laga helo badweynta lana yiraahdo kirid. Carabkiisu kaliya ayaa ka weyn xajmiga maroodiga, halka wadnihiisu uu leeyahay baabuurta raaxada. Ilmihiisu waa kuwa ugu waaweyn dunida waxayna ka dheer yihiin kana xajmi weyn ilaa 2 maroodi. Daadiisa ama cimrigiisu wuxuu gaadhaa 80 ilaa 100 sanadood. waana mid ka xayawaanada ugu cimriga dheer leh. Waxaana farabaan ku haya noloshiisa aadamaha oo ugaadhsada. balse isaguma cuno aadamaha iyo waxyaalaha waaweyn. Sababtoo ah ma liqi karo. Waxa uu ku nool yahay badaha waaweyn ee oceaniska. waxaana la tilmaamay in qayladiisa laga maqlo masaafo 2 mayl. xayawaankan ayaa ku xajmi ahaan, dherer ahaan, qayl ahaan iyo waliba sidoo kale xoog ahaan ugu weyn dunida.